marka socda wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa agab isboorti soo gaarsiiyay bahda isboortiga ee degmada Garada kuwaas oo wasiirku ugu talagalay inuu dhalinyarada bahda isboortiga kaga wacyigeliyo aafada tahriibta iyo balwadaha kala duwan gudahana horkacay xoghaynta wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Cabdirasaaq Xaaji Ciise ayaa ugu horeyn xaflad lagu qabtay hoolka shirarka dowladda hoose ee degmada Garada waxaa lagu wareejiyay agabka isboortiga ee degmada Garada Maxamuud xafladaas oo ay ka soo qaybgaleen waayeelka waxgarad maayirka degmada Garada Faarax Aadan Ciise iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ugu horeyn halka waxa ka hadlay oday Awad Barre Xasan oo mahad celiyay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi isla markaana dhalinyarada isboortiga kula dardaarmay inay ilaashadaan agabkan isagoo halka waxa ka hadlay gudoomiyaha isboortiga degmada Garada maayirka degmada Garada iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka dhamaantood ku nuuxloosay ahmiyadda ay degmada Garada u leeyihiin agabkan isla markaana ay u qabeen baahiyo agabkan ka kooban diraysiga gudaha goolasha iyo shabaabta agabkan ayaa loo qalay mid wuxuu ka tara baahida isboortiga ka jirta degmada Garada waxaan ugu mahad celinaynaa waxa weeye dhalinyarada dhibaatooyin badan la haysta haday tahay tahdiib haday tahay isqarxin haday tahay dhibaato kale oo magac loo yeerin oo qayl la yiraahdo ka aad iyo aad baan mahadsanyahay wasiirku sababtoo ah waxa gacantiisa ku keenay waana kaga guddoonay markii xigtayna markii degmooyinka aynu koobka u dhignay ahayd haddana waa markii saddexaad weey waxay u baahan yihiin wax lala qabto in garoomo loo dhiso in haddii alla yaabo ciyaaraha fudud la ciyaarsiiyo ciyaaro footballka kaliya maaha waxa ku jira basketball waxa ku jira haddii alla yaabo tii kale ee lariska ku jirta ciyaaro way fara badan yihiin iyadoo laga dhiirigelinayo dhinaca sportska oo aan haddii lahay ka dhigo aan soo dhiirigelin doono qabyaaladda tahriibta iyo balwada halkan la dagaalanka balwadaha iyo dhinacyo kale oo badan oo ay taageero uga baahan yihiin dhalinyarada reer Somaliland gaar ahaan kuwa degmada Garada runtii waxa weeye aad baa lagu soo sheekeeyay baahida loo qabay iyo waxtarka uu leeyahay sidoo kale wax la sheegay abaan uu goobjoogaha inay tahay markii saddexaad يعني markii ugu horeysay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi oo agab caynka oo kala soo gaarsiiyay bahda isboortiga ee degmada Garada balse waxay noqonaysaa markii saddexaad uu soo gaarsiiyay agab noocan oo kala ah oo Madaxweynaha TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Garada